Aram Cizzat madaxii golaha Yuhuudda ee Kurdistaan ayaa shir jaraa'id uu qabtay waxa uu ku cadeeyay inuu islaamay oo uu diinta islaamka ku qancay. soo islaamida Cizzat waxa ka dhashay falcelin badan. Cizzat oo waraysi gaar siiyay Al Jazeera ayaa shaaca ka qaaday sababihii uu qaatay diinta islaamka, isagoo ka tagay haybadii uu dadkiisa ku dhex lahaa iyo mansabkii sare ee uu ka hayay golaha Yuhuudda 6 sano ee la soo dhaafay. Cizzat oo 36 sano jir ah ayaa sheegay inuu si xor ah oo sharaf leh u noolaa intii uu madaxda ka ahaa golaha Yuhuudda ee Kurdistaan, isla markaana cidna aysan cabsi gelin oo aanay khasbin, laakiinse isagu uu go'aansaday inuu Allah isu dhiibo oo uu rumeeyo saxnaanta iyo daacadnimada caqiidada islaamka iyo mabaadi'da ay ku dhisan tahay. Cizzat ayaa sheegay kadib markii uu qaatay diinta islaamka inuu la kulmay dhaleecayn iyo aflagaado xad dhaaf ah oo loo soo mariyay warbaahinta iyo baraha bulshada, iyadoo ay u sii dheer tahay eedeymo ka dhan ah isaga oo uga imanaya dad daafaha caalamka ku kala nool. Cizzat ayaa sheegay in soo islaamidiisu ay ku timid saamayn uu ku yeeshay saaxiibkiis oo la yidhaahdo Xaaji Maxamed Bayaaz, oo dhowr jeer u soo jeediyey inay lama huraan tahay inuu qaato diinta saxda ah ee islaamka si uu naarta uga badbaado. Cizzat isagoo ka hadlaya qorshihiisa mustaqbalka waxa uu shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu soo guto cumrada, wuxuuna sidoo kale ku haminayaa inuu naftiisa u huro samafalka iyo u gargaaridda masaakiinta iyo agoonta, sababtoo ah ayuu yidhi Cizzat waa mid ka mid ah asaaska iyo qiyamka ugu muhiimsan ee diinta islaamka. Xaaji Maxamed Bayaaz oo ah saaxiibka soo islaamiyey Cizzat ayaa sheegay inuu ku dadaalayay in ka badan 3 sano inuu saaxiibkii ku qanciyo inuu soo islaamo ilaa uu markii ugu dambaysay ku guulaystay. Maxamed Bayaaz ayaa sheegay in soo islaamida saaxiibkiis Cizzat ay ku abuurtay dareen aad u weyn oo uu ku faani karo maadaama uu ku guulaystay inuu qofka badbaadiyo naarta. Xaaji Maxamed Bayaaz ayaa Al Jazeera u sheegay inuu go'aansaday inuu saaxiibkiisa cusub ee muslimka ah u hadiyeeyo kharashaadka ku baxaya gudashada cumrada. waxaa kaloo uu sheegay inuu ku garab istaagi doono saaxiibkiis siduu uga dhabayn lahaa howlaha samafalka oo uu ajar ka doonayo. Xaaji Maxamed Bayaaz ayaa sheegay in saaxiibkiisa soo islaamay uu ammaan badan mudan yahay maadaama uu Alle dartiis uga tegay mansab sare oo uu dhaqaale badan ku qaadan jiray iyo sharaftii uu ku dhex lahaa bulshadiisa.